Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa shalay waxa uu si adag ula hadlay Yahuudda laga celcelinayo furashada magaalada Qudus iyo masjidka Al-Aqsa. Xalay fiidkii hore ilaa iyo Saaka waxaa ciidamada Israa'iil iyo Yahuudda lagu duqeynayay gantaalo gaaraya 130 gantaal kuwaas oo lagu eegtay goobo muhiim u ah Yahuudda. kadib khudbadii uu jeediyay madaxweyne Erdogan oo uu ku canaananayay Yahuudda iyo kuwa garab istaaga u muujinaya oo uu ugu horeeyo Mareykanka ayaa waxa qaar ka mid ah dalalka Islaamka bilaabeen banaanbaxyo lagu taageerayo Falastiin waxaana dareenkooda aad u kacay dhammaan muslimiinta ku nool daafaha dunida. nuxurka khudbadda madaxweyne Erdogan ayaa waxa ay ahayd in sida loo fiirsan doonin waxyaabaha Israa'iiliyiintu ay ka wadaan gudaha Falastiin oo haddii aanay joojinin tallaabo qaadi doonaan. sida aan wada ogsoonnahay Israa'iil waa dhul laga boobay Falastiin kaas oo wadamada gaalada oo Mareykanku ugu horeeyo ay doonayaan in ay ka dhigaan dal madax bannaan oo ayna doonayaan in haddana ay caasimad uga dhigaan magaalada Qudus, balse arrintani maaha arrin ay si fudud loo marsiin karo muslimiinta Falastiin. run ahaantii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa madaxweynaha kaliya ee mar walba taagan meeshii lagu dhibaateynayo muslimiinta, waana sababta dunida muslimka ah ay ugu wacaan madaxweynaha muslimiinta. qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Islaamka ayaa waxa ay sheegayaan in haddii magaalada Qudus iyo masjidka Al-Aqsa gacanta muslimiintu ay ka baxaan, sidaasi si la mid ah gacanta muslimiintu ka bixi doonaan magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina. daawade adiga xaatan muuqaalkan daawanaya u soo ducee walaalaheena muslimiinta ah ee Falastiiniyiinta, muuqaalkana like saar una share garee asxaabtaada si ay ugu soo duceeyaan muslimiinta ku nool wadanka Falastiin.